kadib cadaadis xoogan oo beesha caalamku ay saartay dowladda iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaa muuqata isku soo dhawaansho yar dhinacyada siyaasadda isku haya ee Soomaaliya iyadoo kulan ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya ee wakiilo ka socda beesha caalamku ay dowladda kadib ku dhawaaqday in shir la isugu yimaado maalinta berita ah magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. Jubbaland oo dhankeeda ka hadashay shirkaasi ayaa wasiirka warfaafinta maamulkaasi Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed wuxuu sheegay in markii hore Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in shirkaasi la qabto walina ay diyaar u yihiin qabsoomida shirka u dhaxeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu muddo ka cagajiidayay inuu shirkaasi dhaco isla markaana waqtigii loogu talagalay uu ka soo dib dhacay. Dhankooda shirkaasi uu cilaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka qayb galayaan. Dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ayana hadlay waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya uu dhexdhexaadintooda uu ka doorbiday in dowladda shisheeye ay dhexdhexaadiyaan khilaafka doorashada. waa ka xumahay madaxweyne Soomaaliyeed walaalihii Soomaaliya oo xilka la leh oo xukunka la leh oo dalka la leh markay la hadlaan inuu inta ka diido dowladda cadaadiskeeda wax ku aqbalo. annaga waxaan aaminsanahay si ay dowladdu wax ku socdo inaysan socon doonin. waxaan quudaraynay taladeena iyo aragtideena iyo afkaarteena annagaa ehel annagaa saaxiib ah annagoo madaxweyne noo yahay. cadaadis ku imaanaya dadka ugu imaanaya madaxweyne uma ah. annaga xurmo nagu leeyahay annaguna xushmaan ku leenahay. xuquuqdeena siyaasadeed inuu ilaaliyo hay-adihii lagu ilaalinayay ayaa loo dhibay ayaan xaq ugu leenahay. inuu inta dafiro oo na dulmiyo oo duni kale ay soo farageliso sida saxda ma aha. dadaalada xoogan ee ku aadan xal u helidda khilaafka doorashada ee Soomaaliya ee beesha caalamku wado ayaan la ogeyn halka ay ku soo dhamaan doonaan, balse shacabka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa rajo ka muujinaya faragelinta beesha caalamka. waa qasab ka keenaysa sababtoo ah waaye labadiiba haddii dhaqaaqaynin oo qolada kale iska fiirsanayso sabab ma taqaanaa waxa ay soo saarto opposite-keeda ay sameynayso. waxaa ka soo in beesha caalamku go'aan meel u yaallo laakiin la doonayo in waqtiga la gaarsiiyo dadkana loo muujiyo in Soomaalida ka soo baxay go'aankan mooyaane go'aan baa jira qasab beesha caalamku ay wado lana rabo in loo deegiyo. marka kaasaan sugaynaa mooyaane xilli dambe oo inta la shiro guddi loo saaro guddigaasi ay soo dhaaraan degaan waa laga qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana loogu baaqay madaxda Soomaaliya in ay heshiis ka gaaraan khilaafka dhanka doorashada. si kastaba ha ahaatee khilaafka hareeyay doorashada ayaa ah mid muddo soo jiitamayay shirar badan oo madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo mucaaradku ay qaateen ayaan wax xal ah laga keenin, lamana oga waxa khilaafka uu ka bedeli karo shirka maalinta berita ka furmaya magaalada Dhuusamareeb.